السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين والله لا يلسو دوادا waxaa in badan la isoo weydiinayay sakariyo Amazon FBA ka soo hadal mowduucan hadaba intaan baaraya waxyaabo cajiib ah ayaa igu soo baxay oo isleeyahay daawadayaashuna way dhiiri gelin doontaa ama si xogtan aad bay u sii raadin doonaan walaalayaal suuqan Amazon waxa sanadkii dhaweyd lagu gaday 469 bilyan oo dollar haddaba ma ogtahay dadka suuqa wax ku dhex gadi kara in lagu soo daray dad Soomaaliya ku nool oo Soomaaliya gudihiisa ku nool in ay Mareykanka alaabtooda ku gadi karaan oo Yurub alaabtooda ku gadi karaan bal sidee ku dhacday waxaan isla arki doonaa Amazon shuruudaheeda website-keeda ayaan geli doonaa inta walaalayaal marka laga yimaado waxaan jeclaan lahaa inaad muuqaalka like saartid sidoo uu dad badan u soo gaaro subscribe-na aad saartid maadaama arrimo badan oo ganacsiga iyo waxyaalaha waxtarka wala bulshada aan kaga hadalno kanaalkan walaalayaal haddaba muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ilaa 3 qaybood 4 qaybood meelaha Amazon FBA waa maxay yaasi Amazon wax ku dhex gadi kara shuruudo nooceeya ayaa laga baahan yahay waayo waa muhiim markaad waxan aad ganacsi ahaan u galaysid shuruudaha maxaa kamid ah inaad ogaatid ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa waxaan sidoo kale kugula wadaagi doonaa facts ama arrimo static ah oo xisaabiyaad ku saabsan suuqan Amazon iyo tanka iyo qiimaha uu leeyahay waxaan ugu dambeyn idin bari doonaa kanaal aydan course u baahnayn oo marka daawataan talaabo idin tusaya sida suuqan Amazon wax loogu gado la isaga diiwaan geliyo caqabadihiisa badi dadka application-kaagu sidaan u khasaarin يعني waxyaalaha loogaga baahan yahay aad toos uga daawan kartid ayaan walaalayaal idin la wadaagaya inta markii ka nimaadno horta Amazon walaalayaal markaad wax ku dhex iibinaysiin waxay leedahay dalalka hadda Amazon ta Mareykanka oo kale dad waxa jiray oo ogol yihiin iyagoon Mareykanka deganayn inay wax ku dhex iibiyaan waxa la dhahaa Amazon Seller Registration Region baa la dhahaa waxaana ugu muhiimsan Amazon ta waqooyiga Mareykanka oo hal account ah iyo Amazon ta Europe marka Amazon ta Mareykanka waxa kamid ah soo sheegnay Canada Mareykanka Brazil iyo Mexico Amazon ta Europe waxa kamid ah Ingiriiska Jarmalka Faransiiska Spain Netherlands iyo Talyaaniga iyo Turkiga wadamo noocaas ah kamid ah Amazon ta kale ee Hindiya jirta waxa jirta Singapore waxa jirta China waxa jira haduu Ilaahay ku roon yahay UAE Imaaraadka Sacuudiga Amazon kale oo suuqiyo ah oo marketplace horta saasay u kala baxaan waxyaalaha cajiibka marka walaalayaal waxa jirta in loo ogol yahay dad warshado iyo badeecado intay ka soo dirsadaan oo bakhaarada Amazon ee Mareykanka iyo Europe inay ku dirsadaan Amazon Seller Registration Region wadamada kamidka ah bal ila arka walaalayaal computerkeen galayna bal ila arka wadamada walaalayaal waxaad ka aragtaan in ay Soomaaliya ka tirsan tahay waa arinka cajiibkaan arkay waxa sanadkii dhaweyd ay soo dhaafnay 2021 May la shaaciyay in Amazon ay 100 dal ku soo dartay wadamada dadkeedu wax ku dhex gadi karaan Amazon ta Mareykanka iyo Ingiriiska awal dalal kooban ayaa jiray haddaba walaalayaal maxaa looga baahan yahay shuruudo si aad suuqan wax ugu dhex gadid waa marka koowaad shuruudaha walaalayaal looga baahan yahay in suuqan wax ku dhex gadid waxa kamid ah in aad haysatid government ID passport oo kale ama wax uun cadeynaya jinsiyadaada ID dawladeeda oo wadanka aad iska diiwaan gelinaysid inaad ka haysatid waxyaalaha lagaaga baahan yahay waxa kamid ah walaalayaal credit card ma aha debit cardka bangiga caadiga la soo furanayo laakiin waxa lagaaga baahan yahay credit cardka uu qofku ma aragtay dadka qurbaha ku nool kala ayaa garan kara waa cardka awood badan oo lacag dheeriya ma aragtay aad kala bixi kartid laakiin credit card ayaa kamid ah waxyaalaha lagaaga baahan yahay bank statement inaad statement bangi aad haysatid oo bangigaaga aad ka heli kartid ayaa lagaaga baahan yahay waxyaalaha lagaaga baahan yahay waxa kamid ah walaalayaal business address ayaa lagaaga baahan yahay waxyaalaha lagaaga baahan yahay waa telephone ama mobile
wadanka ayaa lagaaga baahan yahay oo lambarka xaqiijinta lagugu soo diro waxyaalaha marka walaalayaal waxyaalo noocaas oo shuruudaha kooban ah ayaa looga baahan yahay qofka iska diiwaan gelinaya ee raba inuu Mareykanka ama si Amazon wax ku dhex gado waxyaalaha muhiimka oo kale oo qofka iska wanaagsan inuu haysto si applicationkiisu u guuleysto business email ama professional email oo tusaale ahaan hadaad meheradaada la dhaho meherada yani farshaxan oo kale waa in emailkaagu ahaan karo info@farshaxan.com aanu gmail ahaan oo kale waxyaalahaas lagaaga baahan yahay shuruudaha kamida hadaba suuqani fursad ma leeyahay maxamed nooga sheegi kartaa xaqiiqooyinka suuqan ku saabsan suuqan walaalayaal factskiisa hadii guda gallo wuxuu leeyahay 200 oo Amazon Prime customers Amazon Prime customer waxa weeye dad bil kasta $7 $8 meelahaas bixiya oo alaabtooda bilaash loogu geeyo applicationka Amazon ay video ahaan iyo sports iyo waxyaalaha uu soo deynayo oo kale ay hore u access gareeyaan oo customer daily ayuu leeyahay 135 milyan Mareykanka ayuu ku nooshahay 765 milyan ee kalena waxay ku nool yihiin daafaha caalamka suuqan walaalayaal waxaa la yiri sanadkii dhaweyd 469 bilyan oo dollar ayaa iib gudihiisa ka dhacay waxa wax ku dhex gada 10 milyan oo dad ayaa wax ku dhex iibiya suuqan walow la dhaho 3 milyan ba aad active u ah suuqan walaalayaal waxa sida oo kale yani maalintii bishii kasta booqda 2.4 bilyan oo dad ah ayaa booqda oo gudihiisa wax ka iibsada oo suuqan gudihiisa booqda sidoo kale walaalayaal suuqan boqolkiiba 50 waxyaalaha online-ka Mareykanka lagu gado e-commerce-ka isaga ayaa haysta hadaba walaalayaal yani waxaan dareemi karnaa sidee la isaga diiwaan geliyaa waxaa jirta qayb la dhaho seller Amazon oo waxaad ku qoraysaa hadda daartid inaad suuqan Amazon ee qaybta Mareykanka unified account ilaa 5 dal ayaad hal mar wax ku gadi kartaa oo North America oo kale oo unified North American accounts la dhaho oo dalalka Mareykanka iyo Canada kamid yihiin waxaad ku dhufanaysaa seller Amazon America aad ku dhufanaysaa waxa ku soo baxaya inaad iska diiwaan gelisid Mareykanka saad wax ugu dhex gadi lahayd Ingiriiska oo kale seller Amazon UK oo kale aad ku dhufanaysaa ama seller Amazon UAE Imaaraadka oo kale ama seller Amazon Dubai oo kale markaad wadanka rabtid inaad wax ku dhex gadid aad ku dhufatid waxaad furan kartaa laba account mid account individual oo shakhsi ah oo laakiin Amazon wax kasta aad ku dhex iibisid ay $1 ku charge gareynayso ama account professional ah oo $39 ah oo Amazon wax kasta aad ku dhex iibisid iibka dhaca ayna khidmad ka qaadayn faa'iidooyin badan oo kalena ay la socdaan markaad walaalayaal sameysaan shuruudihi ay soo sheegnay banki statementkii credit cardkii waxyaalihii oo dhan ayaad Amazon iyo halka addresskaagii iyo baasaboorkaagii waxyaalihii oo dhan baad gelinaysaa Amazon ayaa saa kugu la soo xiriiraysa hadaba sidee ku ogaan karaa sikiriyo ma course miyaad noo haysaa sidee waxaan cilmigan u baran karaa waxaan rabaa kanaalo course bilaash ku jiraan oo xog badan ka faa'iideysid oo yani cilmi badan ku duugan yahay inaan kula wadaago sida ninkan Travis la dhaho linkigana hoos baan idin soo dhigayaa wuxuu leeyahay fiidiyoyo badan oo step by step ku tusaya qaabka la isaga diiwaan gelinayo lambar xataa Mareykanka hadaad u baahan tahay Google Voice meel la dhaho oo kale saad uga dhex samaysan kartid company Mareykanka oo kale oo lawyer aad $100 siinaysid oo LLC ku sameynaya waxyaalo badan markaad course-kiisa gadatid oo kale ayaad ka heli kartaa waxaa jirta website-ka Amazon laftirkiisa wadamadu ogol yahay aad ka dhex arki kartid in wax ku dhex gadaan ayaan linkigooda hoos idin kula wadaagaya waxaan idin kula wadaagi doonaa muuqaalo kale oo mid ama laba ah oo aad ka arki kartaan sida suuqan la isaga diiwaan geliyo hadaba waxaan isleeyahay Soomaalidu addressko kale way heli karaan bank statement way heli karaan telephone lagala soo xiriiro way heli karaan laakiin credit card ba wadankeena wali la keenin baan u maleynaya bangiyada ka furan ee Mastercard-dan iyo waxyaalahan bixinaya credit card inay bixiyaan iyo in kale haduu jiro bal hoos igula wadaaga comment-kiina waan akhrin doonaa laakiin waa arrin bishaara ah in hadaad yani Kenya ku nooshahay Imaaraadka ku nooshahay meel kale ku nooshahay inta aad warshad Alibaba wax ka dalbatid Mareykanka aad ku dirtid oo faa'iido aad sii saartid wax ku dhex gadid waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan u faa'iido badan
oo Soomaaliyana loo ogolaaday dadka degan inay ka mid noqon karaan oo yacni xaqiiqatan isla website-ka Amazon gudihiisa linkiga aad ka arki kartaan aan hoos idin soo dhigayo aad ka arki kartaan haddaba walaalayaal kulley Amazon hadda aad baa loo bartay saturation badan baa ka dhacayo badeecadii way isku bateen hal badeecad baa 10 qof oo kale kula mid ay gadayaan inaad lacag badan oo xaysiis bixisid ayaa badeecadaada kor ku tagaysaa si loo iibsado wuu yara tartankiisii baa hadda aad iyo aad ciriir u noqday laakiin wali waa suuq weyn oo intaas bilyan ay booqanayso intaas boqolaal bilyan ay soo galayso waa suuq ay wali fursad ku jiri karto haddii aad heli kartid badeecad wanaagsan oo unique ah oo markaa dadka aad ay u gataan insha Allah maanta waxaan filayaa inaad cilmi badan iyo xog badan aad Amazon FBA ka faa'iiday haddii aad isleedahay suuqa online-ka ah waad ka faa'iideysan kartaa kanaalada daawo dad professional la xiriid la tasho insha Allah waxaan rajaynayaa mar inaad ku guuleysataan sanadada soo socda ama sanadkan suuqa wax ugu dhex gadaan sidoo kale haddaad rabtid inaad ganacsi Soomaaliya gudaheeda aad samaysid oo faa'iido badan waa greenhouse-ka xaggaas aan soo saaraya muuqaalka daawada oo ku dhufta inteen muuqaal la mid ah ku kulmi doono oo walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Cali salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh